Excellencies, ladies and gentlemen, the COVID-19 health pandemic has truly challenged the world in a way most never predicted. Across the world, people have lost their lives, livelihoods, and are tasked with enormous challenge of rebuilding their lives, communities, and countries during a very uncertain period in human history. mudanayaal iyo marwooyin dhab ahaantii xanuunka safmarka ah ee COVID-19 waxa uu noqday dhibaato weyn oo aan horey loo arag. dad badan waxa ay waayeen naftoodii, inta hartayna waxa uu saameeyay nolol maalmeedkooda, waxaana soo wajahay xaalado culus oo ay ku adkaatay inay si dhaqso ah uga soo kabtaan dhibaatooyinka ka dhashay xilligan adag. inkasta oo duruufaha iyo awooduhu kala duwan yihiin, waxaan si dhab ah u aaminsanahay in innaga oo midaysan aan awoodi karno inaan si wada jir uga soo kabanno dhibaatooyinkaas, ahaanaana kuwa dhiiroon oo rajo qaba. markaan dib u eegno sooyaalka aadanaha, waxaa soo wajahay caqabado badan, balse marnaba ma dhicin in wada jirkeenna, iskaashigeenna iyo iska warqabkeenna laga guulaysto. cudurka safmarka ah ee COVID-19 waxa uu na baray in marka masiibooyin dhacaan aynu si wada jira uga hortagno, waana arrin mudan in kalfadhiga 76 ee golaha guud ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa uu noqdo mid diiradda lagu saaro xoojinta adkaysigeenna, inagoo ka faa'iideysanayna rajada iyo didiiladeenna. xoojinta adkaysiga iyo ka soo kabashada dhibaatooyinka iyada oo loo marayo rajagelin, shaqo badan iyo iskaashiyo dhinacyo badan leh ayaa lama huraan u ah inaan si wada jir uga soo kabanno dhibaatooyinka COVID-19. waxaa xaqiiqo ah in faafitaanka cudurkani uu daaha ka rogay wejiga argagaxa leh ee dalalka aan sinayn ee aynu ku noolnahay. waxa uuna bannaanka keenay farqiga weyn ee u dhexeeya halbeegyada, tayada iyo tirada adeegyada dalalka caalamka iyo ururada heer gobol, iyada oo ay kala caddaatay farqiga weyn ee u dhexeeya hanaanka loo wajahayo dhibaatooyinka ee dunida horumartay iyo dalalka soo koraya. dunida soo koraysa ee uu ka mid yahay dalkaygu, waxaan weli la hardamaynaa sidii aan tallaalka u wada gaarsiin lahayn muwaadiniinteenna, maadaama aan garowsanay in COVID-19 lagaga hortagi karo tallaalka oo la wada gaarsiiyo dadka oo dhan. I am proud to say that the Somali federal government responded quickly to the health pandemic in this country. Our policy prioritized the lives of our citizens, and most of our national resources and available human capital was dedicated to saving lives through direct medical provision of information sharing. waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago in dowladda federaalka Soomaaliya ay si degdeg ah uga jawaabtay cudurka safmarka ah ee u soo tallaabay dalkayaga. qorshayaashayadu waa kuwa mudnaanta koowaad siinaya badqabka caafimaad ee muwaadiniinteenna. dhammaan awoodaheenna qaran iyo raasumaalka la heli karayba waxaan isugu geynay badbaadinta nolosha dadkeenna, iyada oo loo marayo bixinta adeegyada caafimaad ee tooska ah, wacyigelinta iyo isdhaafsiga xogaha. inkasta oo wax laga xumaado ay tahay saameynta xun ee safmarku ku yeeshay habnololeedkii bulshada iyo dhaqaalahaba, misana cudurka COVID-19 waxa uu ku dhiirigeliyay ganacsatada iyo qurba joogta Soomaaliyeed inay u dhabar adeegaan dadkoodana garab istaagaan xilligan adag. sidoo kale saaxiibadeenna beesha caalamku inay sameeyaan wax kasta oo suurtagal ah si loo yareeyo khatartiisa. ka falcelintaas iyo wada shaqayntaas xooggan ee lagu wajahay cudurka safmarka ah oo ah weli mid socota, waxa ay badbaadinaysaa nolosha bulshadeenna, iyada oo abuuraysa fursado ay dadkeennu si degdeg ah oo waarta uga soo kabtaan. mudanayaal iyo marwooyin, ma jiro dal, bulsho ama shakhsi uusan saameyn xun ku yeelan safmarkani. sidaasi daraaddeed waa inaan mudnaanta koowaad siinaa ka soo kabashada saameynta caalamiga ah ee safmarka COVID-19. si kastaba ha ahaatee, dhammaanteen waa inaan fahanaa inay muhiim inoo tahay in soo kabashadan lagu baritaaro siyaasado iyo istiraatiijiyado waara oo udubdhexaad u noqda, kuwaasi oo si wada jira dunida looga wada hirgeliyo. Soomaaliya waxaa naga go'an inaan hubinno in tabaha soo kabashada qaranku ay waafaqsan yihiin qorshaha 9aad ee horumarinta qaranka. ubuucda arrintani waxa ay diiradda saaraysaa dib u dhishka bulshada Soomaaliyeed oo xooggan oo wada jirta, ayna asaas u yihiin hay'ado xooggan. dhaqaalaha Soomaaliya waxaa si weyn u saameeyay musiibada COVID-19
si lamida dunida inteeda kale laakiin tan inagama hor istaagin inaynu sii anba qaadno dib u habeenta dhaqaalaha dalka guulaha aynu ka gaarnay dib u habeenta dhaqaaluhu waxa ay kor u qaadeen kalsoonida u dhaxaysa dawladda Soomaaliya dadweynaha iyo saaxiibada beesha caalamka waxayna guulahaasi gacan ka geysteen bixinta adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha sidoo kale dadaalada guuleystay ee dib u habeenta dhaqaaluhu waxa ay keeneen in saaxiibadeena beesha caalamku oo ay kamid yihiin hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah ay nasiyaan kaalmooyin dhaqaale oo aad loogu baahnaa si loo yareeyo khatarta musiibada COVID-19 dib u habeenta dhaqaaluhu waxa ay furo u tahay soo kabashada iyo horumarka Soomaaliya sidaas daraadeed waxa naga go'an inaan sii wadno kobcinta dakhliga gudaha xoojinta hufnaanta maaliyadeed iyo maamul wanaaga sidoo kale inaynu si dhow ula shaqeyno dadkeena iyo dhammaanba saaxiibadeena naga taageera horumarinta si aan u xoojinno inkastoo kabashada Soomaaliya ee saameynta safmarka COVID-19 ay noqoto mid degdeg ah oo waarta. Excellencies, ladies and gentlemen, the protection of the environment is an urgent global priority that the Somali government is committed to. Somalia has one of the longest coasts in the world, vast arable land for farming and huge blue economy potential. Indeed, Somalia's many natural resources are the jewels in the present and future crown of the country. mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya waxa ka go'an inay dhowrto mas'uuliyadaha caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka Soomaaliya waxa ay leedahay mid kamid ah xeeladaha ugu dheer adduunka oo uu ceegaago kheyraad aad u badan iyo dhul beereed aad u ballaaran runtii kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya ayaa xilligan iyo mustaqbalka ah taajka dhaqaale ee dalka sida kaliya ee ay dadka Soomaaliyeed uga faa'iideysan karaan ayaana ah in la ilaaliyo deegaanka si kastaba ha ahaatee Soomaaliya waxa soo maray natiijooyinka xanuunka badnaa ee ka dhashay kuleelka dunida ee sii kordhaya Soomaaliya waxa si joogto ah u soo wajahay abaaro iyo daadad soo noqnoqday kuwaasi oo galaaftay naf iyo maal badan dhibaatooyinka deegaan ee ka dhacay Soomaaliya ayaa horseeday cunno yari iyo kororka tirada dadka ku barakacay magaalooyinka waaweyn ee gudaha dalka sida Muqdisho iyadoo uu dhaawac weyn soo gaaray awoodii dhaqaale ee bulshada reer miyiga ah taasi oo ahayd mid ay qarniyo badan shacabka Soomaaliyeed ku soo caanamaalayeen mahmaah Soomaaliyeed ayaa tiraahda magaaladu waxa ay ku nooshahay sahayda miyiga laakiin nasiib darrada maantay waxa ay u muuqataa in baadiyaha laga soo barakacayo iyadoo bulshada miyigu ay soo galayaan magaalooyinka waaweyn tani ma ahan mid caawinaysa higsigeena fog iyo himilooyinka qaran ee ay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed naawilayaan inay ku tilaabsadaan si hore loogu socdo waa mas'uuliyad wadareed saaran dhammaan dawladaha bulshooyinka iyo shakhsiyaadkaba inay ka jawaabaan caqabadaha uu wajahayo meeraheennani waana inaan dhammaanteen ku dadaalnaa inaynu sida uga habboon isaga kaashano ilaalinta mustaqbalka meeraheenna iyo badqabka ilaaheena nolosha mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya waxa ay si weyn u aaminsan tahay in midnimada iyo wadajirka caalamku dunidan maanta isku xiran ee isku tiirsan carra adeegayntuna ka hirgashay waxa lagama maarmaan ah inay hirgalaan iskaashi wada shaqayn iyo maamul wanaag dunidan casriga ah ma jira dal ay u suurtageli karto inuu kaligii horumar gaaro sidaas daraadeed waa in dhammaanteen dalalka caalamku ay si dhow uga wada shaqeeyaan dardargelinta iyo awoodsiinta qaramada midoobay si ay u mir dhasho doorkeeda isku xirka si aan isula soconno caqabadaha halista ku ah horumarkeena guud qaramada midoobay ayaa ah hay'adda ugu horeysa ee mas'uulka ka ah go'aanada wadajirka ah ee adduunka ku hagaya in si wadajir ah looga jawaabo caqabadaha khatarta ku ah caalamka iyo hirgelinta yoolalka horumarka waara ka dawlad ahaan Soomaaliya waxaan si weyn ugu hanweynahay doorkeena qaramada midoobay iyo iskaashiga xoogan ee ka dhaxeeya hay'adaha qaramada midoobay iyo dawladeena Soomaaliya. The federal government of Somalia firmly believes that the UN can be revitalized through the reform of its own governance structure, which must reflect the changing world we live in today. The UN must also have greater impact on people's lives through a strategic focus on peace-building activities
which are in line with the Sustainable Development Goals. dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay in qaramada midoobay lagu soo nooleyn karo dib u habeyn lagu sameeyo qaab dhismeedka maamul oo ay tahay inuu noqdo mid ka turjumaya isbeddelka dunidan aynu maanta ku noolnahay. sidoo kale qaramada midoobay waa inay saameyn weyn ku yeelataa nolosha dadka iyadoo oo diiradda la saarayo nabadeynta, dejinta istiraatiijiyado la jaan qaadaya yoolalka horumarka waara. intaasi waxaa dheer si loo dardargeliyo saameynta waxqabadyada qaramada midoobay ee adduunka oo dhan waa inaan xoojinno iskaashiyada ku dhisan dheef wadaagga si looga gudbo caqabadaha maaliyadeed ee uu ururku wajahayo waqtigan lagu jiro dhibaatooyinka caalamiga ah gaar ahaanna adduunka soo koraya. mudanayaal iyo marwooyin, dowladda federaalka Soomaaliya waxay si hagar la'aan uga shaqaynaysaa sidii dadkeeda ay u gaarsiin lahayd yoolasha horumarka waara ee qaramada midoobay, innaga oo xoogga saarayna la dagaalanka argagixisada caalamiga ah, maalgelinta adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha, wax ka qabashada musuqmaasuqa iyo dhiirigelinta maamul wanaagga iyo siyaasadda loo dhan yahay. We are currently finalizing the process of holding free, fair and inclusive elections with the largest number of Somali electoral participants since the civil war in Somalia. The elections are centered on respecting the rights and the wishes of the Somali people, including the rights of women and the youth to represent themselves within a very political arena that governs them. waxaa hadda meel gabagaba ah noo maraya hannaanka qabashada doorashooyin xor ah, xalaal ah oo loo dhan yahay, taasi oo ay ka qaybgalayaan tirada ugu badan ee ka qaybgalayaasha doorashada Soomaaliya tan iyo dagaaladii sokeeye. doorashooyinkani waxay udubdhaxaad u yihiin ilaalinta xuquuqda iyo rabitaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan taabagelinta xuquuqda haweenka iyo dhalinyaradu oo ay u leeyihiin inay matalaad dhab ah ku yeeshaan masraxyada siyaasadda iyo hogaaminta dalka. gabagabadii waa inaan hoosta ka wada xariiqno saameynta baaxadda leh ee COVID-19 ku yeeshay adduunka, iyadoo weli qaar badan oo inaga mid ihi la daalaadhacayaan dhibaatooyinka nafsadeed iyo dhaqaale ee uu safmarkani geystay. waxaana wax laga xumaada ah in weli uu hayo qaar badan oo ka mid ah kuweenna ugu nugul adduunka. ugu dambeyn, waxaan aaminsanahay inaynu si buuxda uga soo kaban karno safmarka COVID-19 innaga oo u marayna iskaashi dhinacyo badan leh, midnimo iyo awoodsiinta hay-adaha dawliga ah iyo u hagarbixidda bulshada. intaa waxaa sii dheer, si loo gaaro yoolalka horumarka waara waa inaynu sidoo kale isla meel dhignaa sidii aanu uga jawaabi lahayn baahiyadaha degdega ah ee ina soo wajaha, innagoo dhiirigelinayna bulsho cadaalad ku dhisan oo hesha fursado siman iyo dowlad wanaag. dowladda Soomaaliya waxay si aad uga shaqaynaysaa hirgelinta yoolashan si loo hagaajiyo mustaqbalka dalkeenna. waa mahadsantihiin dhammaantiin. By opportunities and good governance. In Somalia, our government is working hard on all these priorities to improve the future of our people. I thank you.